بسم الله الرحمن الرحيم runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo qabanqaabiyaasha waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo xubnihii kala duwanaa ee halka ka hadlay oo runtii ahaa haldoorka dhalinyarada oo ahaa kuwa mudan in lagu daydo una ah ku dayasho mudan dhalinyarada inteeda kale waxaan rabaa dhowr qodob oo aan badnayn inaan kusoo gabagabeeyo haddaan ku hormaro su-aalaha adag ee guddoomiyaha ururka dhalinyarada uuna weydiiyey waxaan rabaa inaan faahfaahiyo horta ururada dhalinyarada iyo ururada la mid ah waa ururo madax bannaan oo aan ka tirsanayn hanaanka dawliga ah oo si toosa budgetka dowladda ugu jirin waa ururo bulsho oo bulshada iskale haddii dowladdu yeelato waxaa laga baqayaa inay dowladda ajandaheeda mar walba ay ku maaragtay fardi yeesho waatan hadda fursadda kuu siisay sidaas furan inaa u hadashid waxaa keenaysa ururkaas inaad madax ka taho oo aada xor tahay marka horta xorriyaddaas ha iska qaadin oo horta xorriyaddaas hayso tan labaad dhaqaalaha dhalinyarada la rabo in lagu wado dabcan hay-adaha iyagaaba iska soo gabaabsanaanaya yaa lagu tiirsanaan markaan le horta kuwa wax insiinaya oo kuwa idinka in la midoo hay-ado dalalkooda ka jiro dadkooda lacagta ka soo qaaday waxaan aaminsanahay haddii ururkan si fiican loo dhiso oo dhalinyaradu iyagoo isku caloolfiyo ay madaxdeeda doorato inaysan dhalinyaro badan dhib ku ahayn inay hal filis bixiso xataa bishii haddii 100,000 oo qof oo dhalinyaro ah ay min filis bixiso wax ka badan iska dhaaf waa filis maaragta 1 cent 0.1 oo sida loo maamulayo la yaqaan waxaan filayaa inay lacag badan noqon doonto macallimo arrintaa ka saacid adaa marketingka hadda ii sheegay inaad ka shaqaysid sidii lacagtaa loo collecti garayn lahaa waa inaa heshaan dhaqaale ka madax bannaa inay dowladda inii soo marto si aad dalihiina u qabsataan waxaan kaloo wasaaradda farayaa dhulalka hay-aduhu dhiseen oo ururada dhalinyarada loo dhisay oo gacanta dhalinyarada ka maqan dhammaan inay kusoo noqdaan hay-adaha sharciga iyo hay-adaha amnigan u mar waa daruuri dhul kasta oo hanti dadeed lagu dhisay oo duruufihii kala duwanaa si ka duwan maxaa yeelay dhibaatada keentay waxa weeye hay-adahaas NGO-ga mar haddayn dowli ahayn hal guri oo dowladda Puntland leedahay xataa dowladdii hore Soomaaliya ka dhacday oo gacan dadeed ku jiraa ma jiraan horta taa ku bisaaraysta Puntland hantida way ilaalisaa gobol kasta hantidii dowladdu lahayd iyo kuwii horeba dad baa qaatay lama yiraahdo laakiin waxaan hay-adaha laga keeno marka horena si khaldan loo baxsho goor la bixiyey qofka loo dhiibay iyo dhulkaa marka hore adiga keenaya dhulkii buu haysa nidaam xun baa jira halkaas oo u baahan in la socdo marka waxaan rajaynayaa arrinkana wasaaradda inaad kala shaqaysaan waan ogahay gaalkacyo kuwaa ku xaniban garow kuwaa ku xaniban boosaaso kuwaa ka dhisan in kasoo shaqeeyaan laakiin aan sidii la rabay function aan u ahayn in la iswaafajiyana way u baahan tahay dowrka dowladda iyo dowrka ururada dhalinyarada iyadoo nafirkeeda waxaan u malaynayaa waxaa ka jira mararka qaarkood wasaaraddu nafirkeeda santaradaas miyadaa maamulaysa anigu aan qabaa in qaab sustainability uu ku noqonayo loo diyaariyo marka haddii aad urur dhalinyaro oo dowladdu leedahay de waxaadna xasuusinaysaan dowladdii kacaanka shuuciga ahayd taa haddaan u noqonayno waa khatar dastuurkeenna diidahay ururadaas dhalinyarada aad maqashaan oo hore iyo kuwaan hadda weli caqliga xamar ku jiro oo iyagu magacaabayaan tii kacaanka oo shuuciga waa weli maskaxdooda ku rakiban ururadan waxay ka mid yihiin waxaa la yidhahda civil society-ga mujtamac almadani waa inay xor noqdaan oo aysan dowladda ku milmin oo advocacy u noqdaan dhalinyarada dhaqaale ahaan markaa xoroodid ayaa qaraar ahaan xoroobi kartaa marka anu kuma talinayo dowladda hanti ka timaaday inay ururadaas galaan oo ay noqdaan aalad dowladda u adeega waxaan rabnaa inay noqdaan ururo bulsho oo bulshada u hadla oo qeyb ka ah toosinta dowladda dabcan dowladda laba qol aad toosisa waa ururada siyaasiga ah iyo xisbiyada oo hadda aan sameyno dee mar walba toosintoodu aragti siyaasadeed leeyihiin ku laran tahay iyo mujtamaca almadaniga
oo ah ururada bulshada oo annaga waxaa noo weheliya oo adduunyada aan aada ugu badnayn odayaasha dhaqanka ururada bulshada ay soo gelayaan culummada laakiin bulshooyinka kaleeto ururada sidiina u samaysan kuwa dhalinyarada kuwa haweenka kuwa xirfadaha gaarka leh iyo kuwa shaqaalaha waa ururo xoog leh oo shucuurtooda cabira dhaqaalahoodana wuxuu ka yimaadaa dadka membershipka u ah ee ka tirsan marka waxaan rabaa sidii hay-adaha ku bilowdeen iyo dowladda waxaa isku xiraya hay-addii dowladda ay soo maraysaa caqabadahaas waan ogahay in lagu gudbaan rabaa si ay loo helo ururo isku filan oo weligood jira dhinaca sharciga iyo dabcan wasaaraddu waxay ku yeelan doontaa oversight-ka iyo sharciyadu inay khaldamin iyo markay isdooranayso iyo waxyaabahaas inay hagto iyo inay ka wada shaqeeyaan barnaamijta horumarinta dhalinyarada haddii intaa in ka duwan la rabana waa markaasaan diyaar u noqonayna laakiin aniga waxyaabaha ugu warwareegaya waxa weeye inaan xorriyad ini siiyaan rabaa aan faraha inila gelin oysan noqon urur dhalinyaro oo wasaaradda dhalinyarada ay xukunto waxaan u malaynayaa muddadii aan joogay taas ma dhicin waagi hore guryihiina waxaa loo qaatay wasaaradda aynagu labnay marka haddaa rabtaan mar labaad intii wasaaradda iyo guryaha iyo intii la isku labno meel loo raacan la waayana waxaan u malaynaya experience fiican maaha taa markaa kasoo tago waxaan rabaa inaan halka ka sheego inaan rabno inaan dhiiri gelino arrimaha tiknolojiyada ku saabsan iyo xirfadda dabcan iskuulo dhowr oo farsamaa jira arrimahaas runtii waa arrimo dhaqaalo badan u baahan dowladduna tabarteeda way kooban tahay laakiin waxaa naga go-an ugu yaraan xirfado unique ah oo puntland gaar ku leedahay inaan kobcino annagoo la kaashan doono haddii ilaahay ganacsatada iyo dadka maalgashiga ah waxaan rabaa inaan inii sheego shaqo abuurka dowladda ay abuurto in badan oo idinka iniga mida ma dareensana laakiin sanadkii lasoo dhaafay dowladda puntland waxay shaqaalaysay 5 kun oo dhalinyaro ay shaqaalaysay idinku waxaa laga yaaba in idinku baraarsunay 5 kun waxay ka kala imaanaysaa ciidanka booliiska waxaan u qornay 1,000 dhalinyaro ah oo aqoon-yahan soo runtay maaha adaa ka mid a soo maha ciidanka daraawiishta 3,500 ayaa muddadaa sanadkii lasoo dhaafay bayjeegga dowladda soo galay ciidamada BMPF waxaa soo galay wax 500 ilaa 1,000 u dhexaysa 5,000 oo dhalinyaro ah baa maanta guryaha iyo qoysaska reer Puntland qayb ka qaata noloshooda laakiin dadku waxay u yaqaanaan dowlad u shaqaynta hay-adaha iyo wasaaradaha dadka ka shaqeyn keliya dabcan meesha ugu badan ee Puntland shaqaalayso waa ciidanka miisaaniyadda dowladdu 70% waxay ku dhacdaa ciidanka iyo adeegida sidaas ay tahay waxaan dareensannahay habka shaqaalaynta Puntland inay caqabad ka jirto waxaan dareensannahay inuu musuqmaasuq ka jiro waxaan dareensannahay inay eex ka jirto maxaa yeelay waa cudurrada iyo aafooyinka weli bulshadeena ku jira waxaan dareensannahay shaqaalaha iyo madaxda dowladda isku dheelitirnaan inay ka jirto gobollada dalka waxaan rabaa inaan tallaabooyin hal mar ma wada sixi karno wax naga khaldan laakiin dowladdu waxay leedahay siyaasad cad oo ay rabto nidaamka shaqaalaysiinta iyo shaqada inay ku saxdo waxaan maanta shir ku lahayn wasaaradda maaliyadda hay-adaha maaliyadda ka shaqeeya sidii loo hufi lahaa maaliyadda ugu yaraan shaqaalaha xirfadda maaliyadda leh sidii kor loogu qaadi lahaa sidii loogu salayn lahaa base aqooneed iyo professionalism waxaan rabaa halka inaan uga dhawaaqo qorshe dowladdu aan islahaa meel kale ku sheeg laakiin aan fursaddan rabo inaan uga faa'iidaysto muddo dhow waxay dowladdu soo bandhigi doontaa 100 dhalinyaro ah oo shaqaalaha dowladda ka tirsanaan doona oo qaab imtixaana loo qaadi doono iyadoo isku dheelitir loo samayn doono gobollada Puntland ay ka kooban tahay iyadoon oday wadin iyadoon xildhibaan wadin iyadoo cid kale wadin baan rajaynaynaa waxaan kaloo rajaynaynaa inaan ka shaqeyno inaan xirfadlayaasha ku dhex jira hay-adaha dowladda ee qaarkood dulman yihiin oo ay dhici karto inaan aqoon lahayn inuu xukumo mid aqoon badan iyadana inaan dib habeen ku dhex sameyno habka ismaamulidda dalka oo dhinaca wasaaradaha dib u eegno shaqaalaheeda dabcan tallaabo kastoo qurux badan markaan rabno inaan qaadno dad siyaasiyiina si noogu kaca buuq siyaasadeed baa lagu furaa odayaal baa la soo kiciyaa
dee annaga shaqada ugu weyn aan hayno waa inaan deganaanshaha ka shaqeyna eedda waxbaan ku yeelanayna waa u nuglaanaa waxyaabaha qaybto annagoo ilaalinayna wadajirka puntland meesha aan in leeyahay dowrkiina qaata waxa weeye voicekiina hadduu xoogeysto oo dowladda aada garab u noqotaan caqabado badan oo puntland weli halis ku ah soomaaliya inteeda kalena ay dilootay ayaan si tartiib uga gudbi karnaa waad ogtihiin doorashadii qof iyo codka markaan qabanayna wixii caqabad nagala kulmay is-hortaaggii wixii ka dhacay dhalinyaradii ku soo baxday golayaasha degaanka waad aragtaan in badanaa najaxday anigu dhib uma arko khilaafaadka iyo isqabqabsiga dhexdooda ka jira waxay ku baranayaan oo ku argoobayaan habka ismaamulka oo ahaa wax ku cusub waxaan rajaynaynaa xeerarka iyo tirada oo mararka qaarkood caqabada ka timid in dowladdu dib u fiirin doonto iyo qofka shuruudaha lagu xirayo si loo helo deganaansho si dadka loogu adeego dowladdu waxay wadaa isbeddel si tartiiba ku socda laakiin meel fog tiigsanaya ogaada isbeddelka dowladda puntland wada cadow badan buu leeyahay cadow gudaha iyo cadow dibaddaba cadow puntland u diidan nidaamka federaaliga inuu hirgalo oo mar walba carqaladaynaya jira cadow gudaha jira oo diidan in dadku transformation galaan oo ay rabaan inay qabaan u haystaan qabaanka waa taqaanaan soomaa afduub siyaasadeed u haystaan kooxo yar oo meel walba ka jira oo reer walba ka jira oo aan rabin xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa iyo isbeddelkaa jira waxaa jira isku milan dadka dowladda qaybaheeda kala duwan ka shaqeeya iyo qabiilkii oo weli isku lafan mar kasta oon damacno inaan aqoon iyo waayo aragnimo iyo si independent ah ku xulno dadkaba caqabad baa noo imaanaysa sometimes wasiirkii damca inuu wasaaradda wax ka saxba intaasoo qaylaa imaanaysa ilaa ani ay soo gaarta mararka qaybto runtii waxaana haysta caqabadooyin bulshada nooga imaanaya caqabadaha bulshada naga imaanaya kow waxaa ka ah oday kasta iyo xildhibaan kasta iyo qof kasta nin dhallinyaraha dabada ka riixaya uu leeyahay dhiig malihide waa lay dulmaye isagaa ku buuqaya dhallinyaradii baa sharci darrada ka shaqeynaysa marka waxaan rabnaa inaan abuurno fursad hadda waxaa daliil u ah ciidamada booliiska hadda in hor fadhiya markii la qaadanaya iclaankaa la geliyey nin walba isagaa arjigiisa geystay soo saas ma ahayn hay-ado badan oo dowladduna sidaasay noqon doonta haddii ilaahdo tijaabadaas tijaabo la mahadiyey bay ahayd waxaan uga mahad celinayaa quruxda iyo isbeddelka amni ee magaalada garowe iyo magaalooyin kale ka dhacaya siday u sameeyeen dhalinyaro badanaa naftooda ku weyday maadaama weli dalku uusan jilicsan yahay dhibaatooyin badan bay la kulmeen duruufo adagay wajaheen laakiin iyaga iyo annagaba waxaan baraal ku nahay in bulshadeena ay nooga soo noqotay ammaan iyo inay dareemeen in amnigii wax iska bedelo waxaan aada ugu faraxsanahay mar kasta oo baarlamaanka la furayo kulanka ka horeeya waxaa dhaca kulanka guddiga joogtada ah iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka 7 sano aan madaxweyne ahaa waxaa dhacayay ugu yaraan sanadkiiba 2 kalfadhi kalfadhi kasta waxaa eed ka imaan jirtay 2 hay-adood markii guddiga ay la kulmayaan hay-adaha amniga iyo hay-adaha garsoorka waxaan runtii ku faraxsanahay kulankii ugu dambeeyey in guddigii joogtadaha iyo guddoonka golaha wakiilada ay ammaan u soo jeediyeen hay-adaha amniga isbeddelka ku dhacay oo la taaban karo weliba booliiska iyo nabad sugidda isbeddelka ku dhacay iyo xabsiyada runtii waa tallaabo fiican waxaan rajaynaynaa iyadana in ammaan hordhaca ay ka jirto maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus sida ay u shaqo bilaabeen iyo qaabka loo xulay oo lagu xulay aqoon iyo dad dhallinyaro ah waxaan rajaynayaa waxyaabaha ka qaloocan oo muddo dheer soo qaloocanayay maxkamadeena kale iyo bulshadeenna iyagana inaan toosinta qeyb aan ku dari doono haddii ilaahay marar badan waxaa inii ballan qaaday in dowladdu dareenkeedu uu yahay dhinaca amniga iyo cadaaladda inaan xoogga saarno hadday bulshadaan hesho amni hadday hesho cadaalad dhaqaalaha iyo shaqada dowladda laga sugi maayee dadkaa la rabaa inay fursadaha abuuraan waxaan inii ballan qaadayaa horena u dhacday cid kasta oo fursad ganacsi iyo furka maaligoodeed wadata dowladdaa sidii la arki jiray dowladuhu caqabad bay ku noqdeen caqabad kuma nihin
bal dhiirigelin baan sameynaa. waxaa qorshaheena ka mid ah inaan ka kaaftoonno ka deeqtoonno hay-adaha ku tiirsanaantooda dhaqaalaha. waa runteed annaga iyo ururaduba hay-adahaasaan u baryo tagnaa. wasaaraduhu waa wax jira, inkastoo wasaaraduhu budget base leeyihiin, laakiin haddana shaqooyinka badan ay qabanayaan deeqaha hantida ka timaaday u badan tahay. stageka hadda aan marayna waxay joogtaa waagi hore hay-adaha marka ay mashruuca bilaabayaanna wasaaradda waa u yeeri jireen, waa u dhagax dhigi jireen, markay dhameeyaanna kaalay nagala soo qaybgalay dhihi jireen. laakiin hadda waxaan ku faraxsanahay mashaariic badan oo inta badan World Bank uu wado inay wasaaraduhu soo mareen, oo dadka hagaya oo fulinaya ay wasaaraduhu noqdaan, hay-ado ay noqdaan, dadka fulinayaana ay noqdaan ganacsato Soomaaliyeed oo tartan u galay. waa tallaabo iyada naftirkeeda isbeddel ah. lacagtaas waa lacag Soomaaliyeed, muddo mucayan ah grant baa la yidhahdaayo dadka Soomaaliyeed baa loogu deeqay. hadda waxaa socda nidaam dayn lagu qaadanayo. meelaha Puntland ay weli ka biyo diidan tahay waxaa ka mid ah nidaamka maaliyadeed ee deeqaha yimaadee sida loo maamulayo, oo middaa aan ka sheekeynaysay oo urur dhalinyaro maaragtay xallin waayey, ama olombiga Soomaaliya la rabo in la isdoorto buu ka jiro. marka hantida dowladda oo dhan iyadoo laga heshiin faraha loo geliyo, waad garan kartaan waxa ka imaanaya. markaan wax diideyno Puntland ma aha inaan dowladda dhexe diideyno, waxbaan saxayna, mawaaqif baan ka hadlaynaa, nidaam dowladoodu aan isleenahay waa fiican yahay, wax ku darsadaan isleenahay. waana muhim haddaan rabno inaan dowlad xasiloon noqonno oo horo gaarta, oo sanad walba marka doorashada la gaaro inaan dadka farta wadnaha ku qaban. sanad kasta markay doorashadu soo dhowdaan baa dadku walwal gelaya. waan ka xumahay inay saa u dhacdo. Puntland waa xaqiiqo jirta, doorashadii u dambeysay dadka walwal baa galay iyo qalalaaso, laakiin intii ka horreysay doorashadu walwal ma lahaan jirin. waxaan rabaa mid inaa ogaataan, Puntland dadkeeda inay ilaaliyaan maalinta waktigu dhammaado macno weyn bay ugu fadhidaa. waxay macno ugu fadhidaa markii 98 la dhisay oo 3 sano ugu horreysay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf la doortay, oo waktigii uu ku yaraaday baarlamaanka xilligaas waxaa ka dhacay waxyaabo ah inay waktiga kordhiyaan ama si kale wax u doortaan. qalalaasaa Puntland ka dhacay. qalalaasahaas waa ogeedeen, qalalaaso hubaysan buu ahaa. markii laga heshiiyey doorashadii ugu horreysay dhacday, madaxweyne caddaa lagu doortay, waxaa la doortay 8 Janaayo. ilaa maanta 8 Janaayo lagu taagan yahay. sababta loogu taagan yahay waxa weeye hadday maalin dhaafto dadku waxay ka baqayaan inuu qalalaaso dhaco, maxaa yeele wiil waa la dhugul yahay. iyadoo ay dhici karto in mararka qaarkood lagu heshiin karo sida adduunyada ka dhacda, weliba wadamada jilicsan, in wakti mucayan oo heshiis lagu yahay haddii wax fiican la qabanayo in dib loo dhigi karo. waxaynu u baahannahay marka inaan ku dul dhisno annagoo ilaalinayna in nidaam doorasho oo aan dadka qalalaaso ogeyn. sababta keenaysana waxa weeye bulshada Soomaaliyeed baa weli qabiil u abaabulan, inkastoo xisbiyo sameynay weli qabiilkii baa dabada kaga jira. inta qabiil jiro tartan indhala baa jiraaya, xinafta siyaasadeed baa jiraaya. bulshada reer miyiga ah oo qabiilku waxay leeyihiin dhaqan u gaara oo aan u ogoleyn in la kala adkaado, hadday wakti kasta qaadan doonto. reer Puntland kuma jirto. waxaad arkaysaa nin aana loo dilaayo 40 sano ka hor dhacday oo weli loogu ciilqabo la daba joogo. arrimahaas maadaama dhaqankeenu sidaas yahay oo bulshadeena is-ogolaanshaheedu ay adag tahay, waa inaan nin nimaadaa nidaam siyaasadeed oo xadaari ah oo na kala xadaynaya, oo sharci ku dhisan, oo aan qalalaasan noo abuuray. waxaan u rajaynayaa deegaanada kaleeto ee Soomaaliya, isteedyada kale inay sidaas noqdaan. waxaan kaloo u rajaynayaa dowladda federaalka inay ka gudubto in mar walba nidaamka siyaasiga iyo doorashadu sanad kasta markii waktigeeda la gaaro muran siyaasadeed oo gacan ka hadal dhaliya inuu abuuro in laga gudbo, oo ay noqoto wax lagu kalsoon yahay, midka wax dooranaya iyo kan la dooranaya labadaba. hadda waxaan rabaa inaan baaqayga u dambeeya halka uga faro madaxda waktigu ka dhammaaday ee dowladda federaalka iyo mucaaradka iyo waxgaradka Soomaaliyeed inay la yimaadaan hannaan
dadkan kala badbaadiyo oo waqti degdeg ah doorasho dalka geliya si loo kala xasilo doorashooyinku waxay ka mid yihiin waxyaabaha xasiloonida keena inta doorashadu socoto waxaa socda xirniftan laakiin markay go'do dadku waa degaa waa xasilaa inta lagu bartay Soomaaliya marka insha Allah waxaan rajaynayaa arrimahaas ku saabsan shaqaaleynta ururka dhalinyarada gacansiintiisa iyo ka qayb qaadashada horumarada aad sameeynaysaa waxaan diyaar u nahay mashaariic haddaad samaynaysaan ku saabsan bulshada wacyigelinteeda miisaaniyad aad leedihiin inaan ku darno muhiim maaha laakiin dowladdu waxay leedahay miisaaniyada horumarka ugu talagashay ku ciyaari karto oo mararka qaarkood wax inaga siin karto haddaa qorshayaal saxa la timaadaan marka waxaan rajaynayaa idinka iyo wasaaraddan inaad ka wada shaqayn doontaan habeen wanaagsan